subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaargarooba wararkeena subaxnimo waa Isniin taariikhdu ay ku beegan tahay 26 Juulaay sanadka 2022 saakiyo Isniina saaxiibayaal qodobada wararkeena waxaa qayb ka macluumaadkii ugu dambeeyay dagaalada ka holcaya wadanka Ethiopia oo saakan ku bilaabi doono maxaa ka cusub Ethiopia halkee la kala maraya dagaalada halkaasi ka holcaya xilli kooxda TPLF horumar waaweyn ka sameysay dagaalkaasi lana sheegayo in TPLF ku dhawda inay qabsato wado muhiim oo isku xirta magaalooyinka Addis Ababa iyo Djibouti dagaalka ka holcaya Ethiopia iyo xogihii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa waxa kale saaxiibayaal waxa kale wararkeena qayb ka ah 6 qodob oo muujinaya in madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani uu yahay kaliya talis hadaba 6 qodob ee cadeynaya marqaatiga u noqonaya ee madaxweyne Saciid Cabdilaahi uu yahay kaliya talis aan lagu aamini karin talada dalka xilliga doorashada aqalka sare ee bilaabanayso oo janaalkeena sirta durba uu ogaaday waqtiga rasmiga ah uu bilaabanayso doorashada aqalka sare ee macluumaadyo ku saabsan maxaa lagu go'aamiyay shirkii xalay aalada Zoom-ka oo ku dhaxmaray ra'iisul wasaare Roble madaxweynaha maamul goboleedyada waxa kale oo qayb ka barnaamijyo horle oo Muqdisho ka dhacaya oo loogu soo horjeedo farmaajo dhalinyarada ku maqan dalkaas Eritrea waalidiintu wali cabashay barnaamijyo ay dhigayaan kulankii Cabdi Xaashi Mahdi Guuleed oo la sheegay in lagu qanci waayay in horumar laga sameeyo arinta gobolada waqooyiga iyo wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa siyaasadda arrimaha doorashooyinka ayaan soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xiri channelkeena subscribe noo dhig gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka halkan ku baahina soo dhawaada dagaalo culus ayaa wali ka holcaya wadankaasi Ethiopia iyadoo dagaaladuna ay gaareen heerkii ugu sareeyay waxaana la soo warinayay in kooxda TPLF ay horumar waaweyn ka sameysay dagaalada ka soconaya wadanka Ethiopia iyadoo ku dhow inay qabsato magaalooyin waaweyn oo wadankaasi kamid ah waxaana saacadihii la soo dhaafay xoogeysa dagaalka ka soconaya dalka Ethiopia iyadoo jabhada TPLF ay ku sii fidayso fariisimo waaweyn ay ka sameynayso gobolada dariska la Amxaarida iyo Canfarta ee kooxda TPLF hogaamiyaha sare ciidamada Tigreega ayaa sheegay in ay isku ballaarin doonaan xadka gobolada ay la wadaagaan gobolka Canfarta iyo Amxaarida oo ay hadda kaabiga ku hayeen sidoo kale waxa uu sheegay inay kaabiga ku hayeen inay qabsadaan wado muhiim oo isku xirta magaalooyinka Addis Ababa iyo Djibouti hadii wadadaas ay qabsadaan uu sheegay in u sahlan tahay in gudaha Djibouti ay u gudbaan sidoo kale caasimadda Ethiopia ay dhowr kiiloomitir u jirsan doonaan markaasi Garnal Gerson ayaa la sheegay in haatan hogayaha garabka ciidanka TPLF la magac baxay isla markaana ka soo horjeeda in dawladda Ethiopia horan waa taliyay ciidanka militariga Ethiopia TPLF xilliga dagaalada ayaa la soo sheegay in maalmo gudahooda uu sheegay inay kula wareegi doonaan magaalada Addis Ababa iyo waliba Djibouti wadada isku xirta howlgalkan waa mid sii socon doona mana soo gabagaboobi doono ilaa aan gaarno guulooyin waaweyn ayuu yiri afayeen u hadlay kooxda TPLF oo laga soo xigtay wakaalada wararka AFP wuxuu intaa ku daray in ciidamadooda ay ku guuleysteen inay burburiyaan fariisimo ciidamada Ethiopia ay ku lahaayeen deegaano dhowr ah saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxaan ku guuleysanay inaan burburino ciidankii ku sugnaa goobo waaweyn oo kamid ah gobolada dariska nala ilaa hadda waxaan tooganay ilaalada madaxtooyada iyo xubno kale muhiim ah ayuu yiri sarkaal kale oo AFP la hadlay dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka Canfarta dalkaas Djibouti ayaa sheegaya in dadka halkaas ku sugnaa ay bilaabeen in guryaha iskaga barakacaan maadaama kaabiga ku soo hayaan ama ay ku soo dhawin kooxda TPLF Abiy Ahmed xulufadiisa ayaa tan iyo markii ay lumiyeen magaalada Makalla iyo gobolka waqooyiga wadankaasi Ethiopia oo ay la wareegeen TPLF waxa la soo sheegay in xaalad qalqal ay wajahayaan wacdaro weyn ay dhigayeen kooxda TPLF awood muuqata iyana la soo baxeen xaalada ayana u muuqata mid mar walba isbedeli karta ilaa hadda ma jirto wax tilaabooyin ay dawladdu ay qaaday dawladda ayana ku guul dareysatay inay xakamayso kooxdan maadaama awoodda kooxdan ay sii holciso dagaalada ka soconaya Ethiopia ayaa u muuqanaya mid ku sii fidaya gobollo horle taasoo muujinaysa awoodda ra'iisul wasaare Abiy ee dagaalada kooxdan in hoos u dhacday wixii waray ku soo baxay dagaalada Ethiopia saaxiibayaal warkeena kala ayaa naga xasil 6 qodob ayaa muujinaysa in madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani uu yahay kaliya talis hadaba 6 qodob ayaan kugu soo koobi doonaa kaliya taliska Dani kaliya talis waa hanaan dawladeed oo ku suntan hal hogaamiye ama koox hogaamiyaal waana talada ay awoodda dalkaasi marorsaday awoodna ku haysta
waxaana aysan tixgelin afkaarta siyaasadeed midda dhaqaale oo midda bulsho ee dadka ah waxayna tani ay tahay mid xitaa loo diidayo madax banaanida warbaahinta iyo dadka kale waana dhaqamada lagu yaqaano dadka siyaasadda kalitalisnimada ah kalitalisnimada ma jirto dimuqraadiyad dhaqdhaqaaq bulsho warbaahin madax bannaan iyo xogo la heli karo waxayse ku suntan tahay inay tahay mid awoodeeda la maroorsaday oo shakhsiyaad kooban oo gacanta ugu jirta waxaa jirta astaamo iyo calaamado lagu garto nidaamka kalitalisnimada ayna abuurto dhaqamo habdhaqan aan wanaagsaneyn maamulka Saciid Cabdilaahi Dani ee reer Puntland ayaa hadda ku suntan habdhaqankaasi kalitalisnimada ah waxaana qayb ka ah kow xukunka oo hal xisbi ama hal koox ah wala markii maamul oo xoog gacanta ugu jiro nidaamka maamulkaasna asaga uu haysto laba hogaamiye awood leh waa marka halka hogaamiye iska dhigo inuu yahay nin awood leh waana shakhsiga dowladda hogaaminay kaas oo dacad u noqdaan saaxiibadiisa kale ee dhanka ammaanka iyo difaaca u qaabilsan wuxuuna ku suntan yahay hogaamiye kalitalisa waxa uu abuurtay ciidamo badan oo asaga u daacad ah qaadanayana amarada iyo go'aanadiisa oo kaliya horena ka fulinaya afar waxa uu jecel yahay qof walba oo ka soo horjeesta maamulkiisa inuu ka taqaluso si lamida ma tixgeliyo afkaaraha siyaasadeed ee dadka ka soo horjeeda madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani dhammaan astaamahan ayaa muujinaya kuwa ku suntan kalitalisnimo madaxweyne Dani ayaa lagu qeexaa inuu yahay nin aad u adag siyaasad ahaan iyo dabiici ahaanba asagoo la soo sheegay in siyaasadiisa aysan ku dhisnayn horumar dimuqraadiyad taasoo dadka qaarkood ay ku qeexay inuu yahay hogaamiye ku suntan astaamaha kalitalisnimada ayna aad u adag tahay in dalkan Soomaaliya lagu aamino marka loo eego madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani oo hami iyo damac weyn ka leh tartanka doorashada Soomaaliya dhinaca kalena janaalkan ayaa helay xilliga ay dhacayso doorashada aqalka sare ama xilliga ay bilaabanayso warbaahinta qaarkood iyo waliba janaalkeena sirta iyo calanka news ayaa ogaaday inuu dib u dhacay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka ay ugu wacan tahay arrimo farsamo oo la ogaaday saacadihii ugu dambeeyay madaxda maamul goboleedyada ayaana laga sugay inay soo gudbeen liiska musharaxiinta u taagan xilka senatarada Soomaaliya in musharaxiinta qaarkood laga diidan yahay in beelahooda ay ku qanciyaan xubnaha u tartami lahaa waana labada caqabadood ee waaweyn dib u dhigtay habraaca doorashada ee la soo saaray kol hore waxa ka muuqda in 25 bishan in labada aqal ee baarlamaanka ay dooran doonaan xubnaha waa xildhibaanada maamul goboleedyada ay dooran lahaayeen xubnaha aqalka sare laakiin isqabsiga beelaha ka jira madaxweynayaasha oo wali aan soo gudbin liiska xubnaha rasmiga ee la dooranaya ayaa sabab u noqotay inkastoo diidmada guddiyada loo xilsaaray arrimaha doorashooyinka in ay saxaafadda la hadlaan ay diideen haddana xogo la helay ayaa sheegaya in maalinta Talaadada oo 27 ku beegan bishan waa maalinta Talaadada 27 bishan oo bari ah laga yaabo in magaalada Kismaayo noqoto magaaladii ugu horeysay ka qabsanta doorashooyinka dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay u diyaar garowga ayaa laga dareemay halkaas iyadoo doorashadan lagu wado in Kismaayo ka bilaabato bila Soomaaliya hardan adag ay ugu jirto sidii ay ugu guuleysan lahayd soo saaridda xildhibaanada ugu badan ee golaha shacabka si ay suurtagal ugu noqoto in marka la xukunka ku soo laabto hogaamiyaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo Kismaayo marka laga soo tago Baydhabo iyo waliba maamulka labaad waa Baydhabo wuxuu noqonayaa maamulka labaad hadda ololaha doorashada aqalka sare laga dareemayo iyadoo aan la shaacin xubnaha u tartamaya doorashooyinka laakiin si walbaba doorashada Soomaaliya ayaa qasab noqonaysa inay dhacdo dhamaadka sanadkan maadaama dawladda Soomaaliya ay cadaadis weyn kala kulmayso beesha caalamka ayaan ogaanay in shuruudo adag ay ku xirtay bixinta dhaqaale loogu talagalay doorashooyinka dhinaca kalena maxaa lagu go'aamiyay shirkii xalay aalada Zoom-ka ay ku wada yeesheen hogaamiyaasha maamul goboleedyada Ra'iisul Wasaare Roble xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble ayaa war ka soo saaray shirkii aalada fogaan aragga ah ama Zoom-ka ay xalay yeesheen xubnaha golaha wada tashiga qaranka ee Ra'iisul Wasaare Roble madaxda maamul goboleedyada dalka ay ka wada hadleen dardargelinta arrimaha doorashooyinka sida lagu sheegay qoraal uu baahiyay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble dhinacyadu waxay isku garteen in si degdeg ah loo bilaabo doorashada senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo haatan lagu wado inay bilaabato Agoosto bilowgeeda Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo aalada fogaan aragga kula shiray hogaamiyaasha golaha wada tashiga qaranka ayaa ku booriyay
in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u qabsanto doorashada aqalka sare maadaama uu ku egay xilliga loo asteeyay inay bilaabato doorashada senatarada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xukuumadda. qoraalka waxaa intaas lagu daray in madaxda ay isla qaateen sidii loo dardargelin lahaa doorashada aqalka sare. sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa bulshada iyo madaxda maamulka galmudug la sheegay inay ku ammaaneen dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab kaasoo maalmihii lasoo dhaafay sare lagu qaaday koonfurta gobolkaasi mudug. golaha wadatashiga qaranka waxaa madaxweynaha galmudug iyo bulshada galmudugba aan ku bogaadinaynaa howlgallada lagu ciribtirayo maleeshiyada argagixisada al-shabaab. ciidamada qaranka waxa uu wadaa howlgal ayaga oo muujinaya taageero hiil iyo hooba inay ka helayaan dadka shacabka ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha. doorashada aqalka sare ayaa horey loo asteeyay 25 bishan oo shalay ku beegneeday hase yeeshee ma aysan bilaaban balse waxaa ku yimid dib u dhac lamana shaacin caqabadaha keenay balse wararka ayaa sheegaya in caqabado waaweyn ay ku horgudban yihiin doorashada. caqabadahaas oo qaarkood qaybka in beesha caalamka qudhooda ay diideen bixinta dhaqaalaha oo ay dalbadeen in marka hore ay arkaan ay fafaalo muujinaya qabsamida doorashada aqalka sare markaas wixii ka dambeeya ay suurtagal tahay. ugu dambeyn barnaamijyo horle ayaa muqdisho weli ka soconaya iyadoo waalidiinta caruurtooda ay ka maqan yihiin barnaamijyo waaweyn caasimadu ay ka dhigayaan. magaalada caasimada ee muqdisho waxaa markale ka bilowday dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay kaga maqan yihiin wadankaasi Eritrea oo askar ahaan loogu qaaday kuwaas nolol iyo geerib lagu leeyahay. waalidiinta ayaa weli baadigoob ugu jira wiilashooda oo war iyo wacaalba aysan ka hayn tan iyo markii loo qaaday dalka Eritrea waxaana cabashada waalidiintan ay u gudbinayeen markan ra-iisul wasaare Roble maadaama dowladda ay warbixin ka keento. ila wareedi lagu kalsoonyahay janaalka Nasirta ayaa wuxuu ogaaday in 5,000 oo dhalinyaro la qaaday oo 3,000 ka mid ay ku dhinteen dagaalada Ethiopia 2,000 weli ay ku goodonsan gudaha wadankaasi Eritrea. dibadbaxyada ayaa isku soo baxay aaga kilomitir 4 isgoyska dabka ilaa shaqaalaha waxayna sheegeen in qasab ay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay meel ku sheegto wiilashooda oo ay la ogaado mudaxileedka madaxweynaha ka dhiman ayay ku eedeeyeen in asaga sabab u yahay walwalka waalidiinta iyo waliba caruurta ay ka maqan. sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa mar kale dalbaday in madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday uu soo farageliyo arrintan isla markaana uu ka hadla xaaladda wiilashooda oo u sheegay haddii ay dhinteen iyo haddii ay goodan ku yihiin ama ay u deeriyaan ama wax loo sheego waalidiinta. bayaankan cusub ka soo baxay waalidiinta Soomaaliyeed ayaa ku soo aaday iyadoo weli laga cabsi qabo in mar kale dib u qarxo dagaalada gobolka Tigray u dhaxeeya dowladda federaalka iyo kooxda TPLF in ciidamada Soomaaliya loo adeegsado. dibadbaxyadan ayaa sidoo kale waxa uu imaanaya xilli aysan weli wax shaqo ah qaban guddiga ra-iisul wasaare Roble wuxuu saaray cabashada waalidiinta Soomaaliyeed gaar ahaan caruurta ku maqan wadanka Eritrea. si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli wax jawaab rasmi ah ka bixin cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ay soo noqotay marka laga reebo in dowladdu mar qura ra-iisul wasaaruhu guddiga u xil saaray. wagaag saaxiibayaal subax wanaagsan intaas ayaan kusoo koobaynaa wararkeena subaxnimo. qodobadan ayaa ugu waaweyn waqtigan warkan iyo war kale oo kasoo kordha arrimaha Soomaaliya iyo waliba xaaladda Ethiopia oo dagaalada weli ka holcayaan wax walba Ethiopia ka soo baxane saaxiibayaal wararkeena ayaan kugu soo gudbin doonaa iyo muuqaaladeena dambe بإذن الله. هديت صاحبنا نقول سبسكرايب نودي جنال كنا كمبلر كنا تابو حكاسة عيدين هلدا معلوماتك وربحنا ذا يحوجها جارك هل كنا نكون بين الصباح وانا صاحب يال وركن متك حجاه نبت قليل.